wadada isku xidha caasimada Soomaaliland iyo xarunta Hawd ee Beligubadle waxay ka mid tahay horumarka iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliland. Wadadan oo dhererkeedu dhan yahay 64 kilomitir waxay isku xidhaysaa laba gobol Maroodijeex iyo Hawd. Waxay isku xidhaysaa laba magaalo Hargeysa iyo Beligubadle. Waxay xiriirinaysaa laba wadan Soomaaliland iyo Itoobiya. waa wada halbowle ah waxay qayb ka qaadanaysaa kobaca dhaqaalaha ee gobolka Hawd iyo kan guud ee qaranka Soomaaliland. wadadan waxa gacanta ku haya guddi isugu jirta culimaawidiin aqoon-yahano siyaasiyiin xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hawd iyo Maroodijeex. waa wada nasiib u heshay farsamayaqaano aad u xeel dheer iyo injineero hal abuur u leh dhismaha kuwaasoo ku farayareystay marka loo eego habka iyo hanaanka ay yeelatay oo la mid ah standardka wadooyinka waaweyn ee adduunyada iyo wadamada وهرين وددو هرمركي أنا هاجر بحني سو هلا ودا ما شاء الله قولك هو ما هبابا يو بسم الله الرحمن الرحيم halkan aanu joognaa waa wadadii hore ee Habaasweyn ee meesha loo yaqaano Cashuura ee marka roobku soo doo aanay mari jirin halka gawadhidu aanay mari jirin halkan imika waxa maray roob daad ka yimi xagga Wajaale oo soconayay ilaa 15 saacadood dhererkana uu ahaa mitir dooxaas wuxuu jeedaa halkan waad aragtaan wadadani waa tii hore waxay isu bedeshay markaa doox markii hore markuu dooxaas saa u sameysmo imka hadaa lugta ku taago iska daagaadhay aniga la degaysa markay gaadhigu soo maray isagoo sidaan dawid degay taas loogu bixiyay magaca Cashuura oo gaadhidu ay halkan ilaa Habaasweyn isticmaali jirtay alxamdulillah waa nimco Ilaahayna siiyay hadana waa in laga sii gaashaantaa wadadaas la sameeyay imika isagoo roobka 15 saacadood daadka 15 saacadood maraya ay hadana u suurto gashay gaadhidii ka imaneysay Hawd inay toos u marto iyadoo aan waliba laga dhigin laami ay tahay only arakaawadi iyo laayiradii hoose ee basementka oo la dhameystiray alxamdulillah waxa muuqata in ay laga gudbay markaa caqabadii ahayd Cashuura oo haddii xitaa sidan lagu daayo ay ahaanayso in ay dhibtii hore laga baxayo laakiin waxa ku qurux badan in wadadii imika waxay noo jirtaa 2.5 kilomitir bay xaga inaga xigtaa wadadii insha Allah sida ugu dhaqsaha badan baa laami looga soo dhigayaa intan ilaa iyo 3 kilomitirka iyo barka kale ee nooga dhiman magaaladii way muuqataa waan malaynayaa iyagana waynu tagi doonaa oo hadalkooda waa lagu duubi doonaa kulley inta ay sida u dareemeen dhibtii sida uga baxeen sanadkan alxamdulillah ilaahay ma hadii weeye hadii ay maalin Roma laba dhisin buu Talyaani ku mahmaayay mar haba hadii maanta laga baxay Cashuura waa qaybtii labaad ee adkayd ee wadada Hargeysa ilaa Beligubadle ay meelaha dadka dhibi jiray ahayd xagga hore waxay ahayd halka xidhka meedka la yiraahdo ee laga soo bilaabay wadada marka labaadna waxay ahayd halkan Cashuura oo ilaa 3.5 kilomitir ah waxa ku xigta oo marka ayayna sugaysa oo feeska kan ku xiga noqon doonto insha Allah geliga oo sida imika wararku nagu soo gaarayaan ay gawadhi fara badani ku jirto maadaama halkan la dhisay gawadhidii hore soo dhaaftay halkan way dhaaftay laakiin kuwii geliga uu roobku ku qabsaday iyagu wali way ku jiraan dhibtoodina wayna sugaysaa insha Allah imika feeska kan ku xiga wuxuu noqonayaa in loo kaco xagga iyo geligi insha Allah ما شاء الله قولك هو markii hore waxaan taagnaa wadadii hore ee rafka ahayd ee dadka dhibi jirtay imika waxaan taaganahay bayskii cusbaa ee la sameeyay ee wadada Habaasweyn Beligubadle Habaasweyn ilaa Hargeysa taasa imika dad gawadhidu kaga soo baxday oo laga raysay dhibtii gawadhidu geli jirtay marka xilliyada roobabka salaam alaykum gaadha ku soo ما شاء الله قولك هو بسم الله الرحمن الرحيم anagoo ah odayaashii tuulada Habaasweyn waxaanu fariin u direynaa dhammaan gobolka Hawd iyo qurba joogta
iyo cidda deegaankana dhammaantood waxaan leenahay waddadii habaasooyin la odhan jiray saaka habaasooyin maaha waa laami waa aragtaan waa la sameeyey waxay u baahan tahay wax yar waxay u baahan tahay daamurkii iyo carrakaawadii wax yar ribayd u baahan xaalxaal bay u baahan tahay waxaanu u sheegaynaa dadka ay khusayso iyo cidda kale reer somalilanaba iyo ciddii danaysaba iyo dowladda somalilan intaba waxaan u sheegaynaa in ay ka qayb qaataan waxtarkaas lama mari jirin halkan 15 saacadood lama mari jirin 4 habeen iyo 4 maalmood imika daad waxa maray socday 24 saacadood daadka 24 saacadood socday mar kaliya gaadhigu isma taagin wax xiriiroo kala go'ay muu jirin ilaa bin balgooda ilaa min Hargeysa diriitahayd baabuurtu ay soconaysay dhuxusha iyo wax walba oo kasta oo loo baahan yahay way maraysay waxa weeyaan waa halbowleenahay waxaan leenahay walaalayaal qof kasta oo ay khusayso iyo cid kasta oo reer Somaliland inay ka qayb qaataan oo ay iska raaciska yar wixii ay harsan ay wax ka qabtaan annaguna diyaar baanu nahay haddii aanu nahay dadka deegaanka iyo ciddii gobolka Hawdegeniba diyaar baanu nahay haddii xoog tahay haddii xoolo tahay inkastoo ay maalkii reemiyigu iska liitaanba waan la iibsanayn haddana wixii maanta karaankayaga waxba la harimayno iyo wixii ay khusayso reer Somaliland wadada ilaa Hargeysa ilaa Balgubadle gobolka xidhay wada xiriirinaysa awalna halkan habaasooyin way istaagi jireen baabuurta labada koone ayay habeenadii u hooyan jireen ama 3 habeen ama 4 habeen bay fadhiyeen imakana ismay taagin inta loo sameeyay ilaahay mahadi weeyay waxaan jecelahay in inta u dhimanna si wanaagsan noogu qabataan oo isla kaashano annagoo dadweynihii aanna nahay magaalada habaasooyin inana waxba annagoo kala hanay amba xoolaha noqoto amba si kastaba haatee in isla kaashanaan wanaagsan allahna hayleena qabto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habaasooyin waliba siiga aagan waxa weeyaan habaasooyin gudaheeda intii la oranay cashuura waxa laga soo shaqeynayay muddo dhan 2 bilood wali qayb baa u harsan wadada waa qabyo inta imika laga shaqeeyay ilaahay ma dibal taagay intii 24 saacadood ku maray 24 saac baabuurtu dhex qaadis wax baabuur ah kaday ama wax baabuur meesha gashay ma jirto inta yar ee xaalka dhammaan cidii qosayso iyo cidii waxan ku wax gashanaysa inta yar xaalka sidii loo dhameystir la ee la iskaga kaashan la ayaan jecelahay guudida wadada hay'adda wadada inta waxan ku waxtarkoodu aad bay u muujiyeen way muuqataa wataasoo waxan baabuurtu 24 saacadood toba socota haddii roob helo iyo haddii dad marayba ma joogsanayaan inta harsan waxaan leenahay inta harsanna aan iska wada kaashano shacab iyo dadweyne iyo dawladba iyo Soomaaliya qurba joogta cid kasta oo wadaas qosato wax ka shanaysa waxaan leenahay ilaahay ma hadii taaganay inta hadana aan yara maqaadno insha Allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سيده رب الله sheegay waxaan maanta taaganahay wadadii habaasooyin gaar ahaan tuulada dhexdeedii baan taaganahay oo ay soo gaadhay wadadu intan imika habaasooyin soo gaadhay artuulkii waa qabyo iyadoo haddana qabyaa sida odayaashu sheegeen faa'iido badan bay soo kordhisay faa'iidadana waxa ugu muhiimsan markuu roobku da'o waxa kala gu'i jiray isu socodka hawdka iyo Hargeysa gaar ahaan tuulada habaasooyin kala soo gaaro oo dadku ay u bixiyeen cashuura halkan aynu taaganahay dhibta ay lahayd awgeed iska daa gawaadhida waaweyn ee kuwa yaryar ee four wheel drive ka ah xataa ayaan mari jirin oo ka joogsan jiray waa ilaahay mahadii hay'adii noo dhistay dhaay iyo dadkii markaasi ka qayb qaatay reer habaasooyinba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanuna ku amaanaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran intay noo hadhayna waxa loo baahan yahay inaan iska raacino oo wadada qabyada yar ku jirta xaalka yar aynu dhameystirno daamurkii aynu ballan qaadnay insha Allah aynu dhameystirno halka markaynu marayno qaybtii labaad ee wadada Hargeysa Balgubadle ugu dhibta badnayd ayaynu ka baxnay hore dooxadii u baalaynu uga soo baxnay iminkana waa dooxadii Xaabaale insha Allah geeligana si fudud ayuu uga bixi doonaa haddaynu iskaashano oo aynu markaasi gacmaha isqabsano marka dhammaan ummadda oo dhan waxaan markaasi ku boorinayaa oo ku dhiiri gelinayaa in ay ka qayb qaataan wadadan sidii horeba ay uga qayb qaadan jireen wixii marka maalkooda iyo xoogoodana ay gashadaan sadaqa jaari ay insha Allah u noqon doontaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa qof kasta oo wax gashaday in miisaanka xasanaadka Allah ugu daro ilaahay subxaanahu wa ta'ala
uu qof kasta markaasi muraadkiisa san uu ku siiyo ciddii ka qayb qaadatay jazaahum allahu khayran baan leenay aad qaybtan waxaan ugu mahadnaqaynaa hay-addii dhaay ee 3 kilomitir ee iminka dooxada ah waxay nooga qabatay iyo odayaashii iyo dhalinyaradii reer Habaasweyn iyaguna xoogooda engeliyay shilmaanta yoomka maalin laga qaataa maaha wax buuran waa xukumay qaadan jirin waan ognahay xoogooda ku tabaruceen inay geliyeen kaga shaqeynayeen oo maaniya habeen bay ku qodayeen jazaakumullahu khayran ma leenay waxa harayna in iyagu maadaama faa'iidada koobaad ay reer Habaasweyn helaan in ay sida ay xoogooda u gashadeen baaqiga harayna nagala shaqeeyaan aad iyo aad nood maadsan ma magaalada Habaasweyn wadadani markaan ka sheekeynayno kulay waa intii la oran jiray cashuura waa 3 kilomitir markii hore gacanta waxa lagu qoday 40 sentimo hoos gacanta loogu qoday wadada ballaarkeeduna waa 7 mitir 3 kilomitir ba dhagax iyo carakaawa lagu soo buuxiyay waa kan kulay daadkii ugu horeeyay marka la soo kulmay wadada dhamaadkeedii kulay faa'iidadeedu waa taymka uu marayo gawadhidu marayaan ay ahayd kulay qabiyada wixii u dhameystay in la dhameystirana waa degdeg loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in daamurkii la saaro marka wadadeena waa 3 kilomitir 7 mitir bay ballaarka u tahay 3 kilomitir ee dooxada ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin waa talaabo wanaagsan oo hay'adda dhayna la qaaday aniguna gacantan ku hayo alxamdulillaah rabbil caalamiin waa taymka intii halkeedii ugu dambeysay baan joognaa ilaahay baa mahad u sugnaatay assalaamu calaykum waraxmatullaah